ورحمة الحمد لله السلام عليكم كورما وصل وين عندك كرامية يا How are you Walala كورما I know How are you Hey Walala Hey Should we shake hands or high five Okay. High five Guys, welcome to Bur'a, University of Bur'a. I'm so excited. This is my first time coming to this great city. I can't believe that all these young people all over this area are in universities. How exciting. I hope all you guys in the diaspora are also in universities because the future of any country lies in the development of young people. So let's go. Okay. Let's check out Bur'a, guys. Woo! Traveling all over Somalia, I've seen how technology is bridging the gap for students. We visit a computer science class. The professor says the students love technology. Yes, they are like, they want to like to be future in software engineering, network developers, or telecommunication engineering. Their career, also network security, and they very like computer study, such like IT, parts of IT, and they hope they will be their future for us. Oh, okay. Inshallah khair. Okay. Ato Messentin. We walk over to the library and see how culture is being revived. Many students, even inside of the country, do not know much about Somali nomadic culture. So this is kind of cool, guys. We're touring the campus all over this great university, and it seems like everywhere I travel around the world with Somali students, culture is being revived in this country and also outside the country. So I'm excited to see what you guys are doing to learn about Somali culture. Can you show me what you have in this great library? كان عنها لو عبه. Yes. I drank the camel milk with this. Yes. Oh my God, this is so good. Shalakto. You know this? Yes, وقيل كيو. So this is all Hindi دقيق stuff. هل إيو نرك؟ دقيق إلى سأوبا هنا. And also this use it for camping. Oh, the hair comb. Yes. Okay, so this is the old hair combs. No, Wow. you can use it. سقف. أنا مكوكو. بسوي. إيه أنا بسوي. Yes. Are you sure? Yes. مش خليسة. Yes. والله. No. See, guys, the nomads know what to do. We don't need plastic, Maha. This is wood. No plastic, yes. MashaAllah, it's amazing. إيه كبيه هره. What could be horrible? Whoa. And So my علمي ليه هنا. I know the hair, okay. This is Gabadi hair, right? Hair of the Gabada. Yes. Okay. Sorry, the other way around. So this is the traditional. This one. This is the traditional Somali wedding in the north, where they basically give it as a gift to the man's family when a woman gets married. This is the hair doll. Is it hair or hair doll? Hair doll. Okay. ham, Hand. and it's used for milk and make shaking Oh, in order shake. to produce a cheese. Oh, cheese. Yes. Subaga too or no? Or just, okay. And it's used for like that. هذا حبدي بقى لو بدله. Tanina waa leebkii. leebkii هي. Marid wax la yada sun baa la mariyaa halka. هي. Kadibna waxa loo isticmaalaa saasa loo ridaa. Now this is a small sample. Oh, ها صح. And then they use like that. هدلي منك ده. Don't kill the guy, okay? Wow. So waxaan wixii bariga hore la sameyn jiray, sax? To show you this. Tan maxay tahay? Do you know this? No. It's a wigger. What's wigger? maxay tahay? Do you know? No, I don't know. Dhaqan cilasa u baahan ku sheeg. Ii sheeg maxay tahay? It is something Like cunto lagu sameeyo or waxa lagu sameeyaa? always marka gabadhu umusho Ha. ayay qaadataa. Haye. Marka ilmaha yar baa madaxiisa la dhigaa. Waxay aaminsan yihiin inuu jinka iyo shaydaanka Ha ka saarey celinayo. ha. Structure ahaan wuxuu samaysan yahay.
tin leh waa qof ها مدحي. علشي وجهي، أفكي. أفكي الله ها وقف this is a person Shiba. لكن هذا مين السماعة؟ ما يهد القرآن كماها yeah there's a drum thing right Somali drum برامبر كلا قطرة برامبر أو يات Somali ده Something new to you. Have you ever seen this? this one ما وحس تاي كلا Kalax. كلا okay حيت هاي Waxaa loo isticmaalaa haanta biyaha marka la darsanayo Ha. waa la darsadaa. oh and you drink it okay Ooh. So this is the traditional dishes to drink cup color or like and you scooping biha. MashaAllah. Yes, this is marka camel ka usosa. This is how you keep the camel. You probably get Waa dhageysanaysaa geelka, right? Waa qurux badan tahay tanba. Kuwii arkay shalayto waa caadi bay iska ahaayeen, but this is decoration fiican. you know this? May waxay tahay oo marka camelka lagu raaco. Waa hogaaminaysaa, right? Is that what it is? Yes? When you push Hangol. when you want to push The truth. Okay. You use two times. Yeah. Now you are pulling and sometimes you are using to make push. Oh, صح. Okay. So two purpose. Oh, I know this one. Kanna waxaa lagu shubaa. This one is like my favorite. Is the unsi cup. Yeah. Wili waan haystaa kan, okay? Kan unsiga lagu shidaa. Kan muxuu yahay? Digaxaad. Digaxad? Do you know digo? No, what's that? I know, wallahi. Hela yaabin, wallahi, you know, waxaan anaga kumaan soo korin. We never see this stuff. So, ii sheeg maxay tahay tan? This is stuff. Digada ayaa lagu xaaraa digaxaad baa la yiraahdaa. Digadu waa farce. I think it's animal farce. Okay, the chicken. Animal excreta. Oh, okay, okay. Do you cleaning? Oh, you cleaning. And you have to collect it. Haye. And then you have to. that one. Okay, and the maroon kana? Yeah. This is the maroon, this one? This is the guriga aqal Soomaaliga marka la sameynayo. This is when you want to take the together. Oh, okay. For example, Yeah. this digo, animal excreta. You Okay. have to collect it, Yeah. and then use it, and then put there, and then do this. And go away from Outside your the- outside. Qashinka soo tuuraysaa markaas. Okay. Sax. Okay. Haye. Kibit is used for Somali house. Yes, aqal Soomaaliga, right? Okay. And also house, House. harar. Haye. And also it's used for Somali house. Wow, mashallah. Bul house. This is amazing. Look at all these cultural artifacts right here at the University of Bur'o. It's amazing that all over the world, Somali culture is getting revived. And I'm always amazed, even dadka wadanka jooga, dhaqankiiba weli way yaqaanaan mana yaqaanaan. So inshallah, qof walba Soomaaliya wuu ogaan doonaa dhaqankeenii hore sidii caruurteena dhan sii bartaan meel walbay joogaan. No. So this is kind of amazing. This is actually a skeleton of a camel. It looks like a dinosaur. Yeah, sure. Can you tell us more about this? This is actually like fascinating. What would Somalis do without camels? This is an essential animal for this country. Yeah. You know, the Somalis, they somehow look like really, when it comes to camels, we share so long historical tradition and rearing systems Wow. with Arabs. Warun. So maybe the camel was the first animal they have really reared or a good pasture. So if you now go to the rural areas and you ask the children which one they like, are they like the cattle or the sheep or the goats or the camel? All the boys they say we like the camel, Yes. and maybe the daughters they prefer for sheep and goats.
Well, But for the because- boys, it's probably seen as a symbol of all their life work, right? Yeah, because yeah. he watches his father. This is his job, his pride and joy, Yeah. and then he becomes like the father and does the same thing, right? So it's like It's a position, good yeah, position, yeah. it's a good position. That can be transferred from family to family. So now you're teaching students the same art that Remiga caruurtooda bari jireen oo kale. So Ahmed, I want to thank you so much for giving me the tour of this great university. I just found out that adigana waxaad tahay like a poet. Gabay baa tuurtaa baan maqlay. In yar noo soo tuur. Okay, waad mahadsantahay. Dhaayuhu wixii ay arkeen dhaygaga iyo yaabka dhuuyaalka waxa igu wacan dhiilada iyo baaqa dhaqan sii dumayaan arkoon cidina dhaadayne horta dhoofaya inagu yidhi waa su'aal dhab ah oo weliba dhaqankiina naca ina dhex qaadsiiyey dhaashiga labeenta hablii dheegan jiray waayo wax kalaaba lagu dhoobay oo dhiriq u soo eegay hablihii dhabeeshiyo ahaa gaari lagu dhaato dhejisbaaba loo soo xidhiyo mara dhib weyn keentay hablii dhacanta iyo meesha adag dhaanka gudinayay dherigaba ma kariyaan haddeer mooyisay dhaliye horta dhoofayaa inagu yidhi waa su'aal dhabe oo weliba dhaqankiina naca ina dhex qaadsiiyey dhuuxayna daatoo ma ogin dhaawacaa jiree balaan dhaadhacee faalladiyo dhuuxa tuducaygan allow yaa siday waxu dhaceen dhab uga sheekeeya allow yaa dhallaanka iyo hablaha yurub ka soo dhoofsha allow yaa dhiqlaha reer galbeed dhinac ka weydaarta allow magacii waa kaa dhintay yaa u dhagarooba allow yaan ka dhowrsanay dagaal dhiisha kaga gooyo allow yaa dhurwaagayna cunay dhaada marikiisa allow yaa dhukaankayna helay dhab uga sheekeeya markay xaajo dharastee kasiira dhaafto araggiisa halyaygii dhammayn jiray malaadhalanba waa maanta dadaan dhuuni mooye wax kale uba dhaqaaqaynin hadba dharaqda kii lagu arkaa lagu dhowaadaaye dhacantaye sidee baan haddaba ugu dhowaadaa bar dharastaye allow yaa mar qudhadhaan isugu keena oo kayn dhir weyn iyo ku fura dharabkii daaddheere oo dhaqa ku dhaha xoolahay sidan ku dhaantahay idhegaysan maysee waxaan dhigay fariintayda ruuxay dhilmaanyadu cunto ee shubato dhiiggiisa dhibta wuxuu dareemaa markuu joogo dhowr beri ee haddaydnaan ka dhiidhin xumahan cadowgu soo dhoofshay giddigiinba dhiriqdaa ku jira wayga dhimateene dhejiskana ku marahawdka waa hawla sii dhigay Whoa. We have the new Hadrawi live from Bur'al Integration TV. Thank you. High five. Good job. Thank you to all the great students at the University of Bur'al for giving me a tour of their campus. I look forward to seeing more students of Somali heritage all over the world, rediscovering their culture and reviving our culture. Berbera Integration TV, we are here on this beautiful oceanfront view of the beautiful beaches of Berbera. Look guys, we're staying at the Monsura Hotel, the only oceanfront hotel in this entire area. I'm excited to share this journey as we learn about Berbera and why Somali love lives here. بربراي وحدهاي أبرتا ليسكو جاجي عالم كوبا بدان صدو بربراي وحدهاي أبرتا ليسكو جاجي عالم كوبا بدان صدو بلي waxaad u leedahay eriboodka bilaniyo mawjadaha butaaciyo beertii jacaylkee boodhari kuwaasna beertii jacaylkee boodhari kuwaasna. My summer vacations, winter, we're coming to Berbera, baby. Look at this sand, woo! So we arrived here last night. I couldn't help thinking how beautiful the stars, the romance on this beach. And I was thinking to myself, is there such thing as Somali child? Because in Berbera, it's the perfect place for soulmates to meet, I say. But guess what, guys? I found out there's a legend here of a man who fell in love with a woman named Holland. Hey, we are lovable, okay? Anyways, he's buried here in this city. His name is Ilmi Boderi, and he is one of the originators of Somali love. So we're going to visit his grave and learn all about why he was in love with this woman named Holland.
Integration TV. Join us live from Berbera. What more beauty could there be in this beautiful nation of ours but this beautiful ocean? Don't discriminate against any part of Somalia. Join in the integration of tourism of our great country. So we just arrived here right now at the cemetery where traditional Somali storytelling says that Ilmi Boderi, who died for the sake of love for a woman named Hodan, is buried here. Now, many say that they don't know the exact location of his area that he's buried, but it's actually right here. So welcome to the cemetery where Somali love died, but I think it can be revived, okay, guys? Somali love can come back right here. Ilmi Boderi, the tradition continues in Berbera. Follow me as I show you more around the great city of Berbera. So we're going now to look for where the legend Ilmi Boderi met the love of his life. Basically, where did he meet this woman named Hodan to fall in love with her? And a legend says that he was making bread every morning and she would come to his store and look for that sweet bread. So we're going to find out his shop right now. He used to work at a Mufa shop. Rootida samayn jiray. Waa jacaylku wada rootidan uu sameynaya. So gabadhu wuxuu ku bilaamayba roodi ma kiibst. Roodi kiibsatay. Roodi kiibsatay. Allah. Sanayar baydo anigana markaan laas caanood. Wala ma saaxiibis. Markaan laas caanood aaday rootidii laas caanood baan jeclaaday. Maybe Ilmi Boderi rooti macaan buu sameyn jiray. Maxaa laga ogyahay? Hodan every morning way iman jirtay rootidii ma haysaa. Woo! So we just arrived to find out where Ilmi Boderi made the love that Hodan fell in love with. It looks like this is the actual bread shop where the father of love, Abihi Jacaylka or Somali done, right here, guys. This is where, and guess what? He was an entrepreneur. You know I love entrepreneurs. So, nunka Somali, shaqar hadsida, okay? Waxa gacanta soo saara. Jacaylki Ilmi Boderi, right here. The father of love. This is his shop. I think it's closed now, but we're going to reopen the love, guys. Jacaylki wala soo celin doona. Jacayl! Hello, jacaylki Soomaalida ma jira? Jacaylki muu dhintay? Yaa yiri jacaylki muu dhintay? Maamada. Jacaylki waa in la soo celiyaa. Nolosha cusub soo dhaweeya. Jacaylki wuu soo noqon doonaa. Maama ma kula hadli karaa? Kuu soo dhawaada. Islaanta waxay tiri Islaan oo xagga fadhido waxay tiri jacaylki wuu dhintay. But jacayl ma dhiman, guys. I still have hope. There's love. Love is still here. Welcome back. Nolosha cusub soo dhaweeya. So guys, I've been walking around where Ilmi Boderi's business area was, and it's fascinating that this man, I guess his legend continues because people are telling me he has a house here that you can see, but Lamadisin Guriga Willi, and we're trying to find out where his houses are, all this stuff, but it looks like all this stuff has been destroyed. But I found a special mama who's gonna no shake tarikh disi. Dadka dhan oo TV-ga daawada af English ay ku daawadaan. So inshallah waad tubi karnaa. taariikhdiisii waxay ahaaday 38. Okay, 1938. Haye. Isbarashadoodii meesha isugu yimaadeen fooqaasi ku jirta isna halkaas oo moofadii roolida ku dibayay. So rootidiisii bay jeclaatay. Maya meesha fooqa bilaska arkay kasal. Haye hawlka la iska arkay waxa la yiraahdaa gabadha way qurux badan tahay. Ha isaguna qurux badan tahay walis waay marka walis arki waayay. Haye aan gormay rootida ka iibsan jirtay. Markii soo gashay isagoo ka jeesan jiray jacaylka ka batay. Haye. Jacaylka ka batay. Jacaylka ka batay oo ka jeesan jiray markii dhaqaaqada uu eegi jiray. Okay, so and then mu u sheegay inuu jecel yahay. way ogaatay inuu jecel yahay markuu shoonay aragtay aydan iimaanaysa markaas ka aydan ka waxaysan. Haye.
So siduu u dhintay jacaylkii siduu u dilay ninkan. Apparently he died from love. Jacaylkii kuma celin isaga ma jeclaanin. Ma celin iyagoon is arkin ballan baa loo dhigay iyagoon is arkin bay kala iswaayeen. Haye. Maxay tiri ma ku rabo? Isagana ma ku rabo ma oran ma iska hor imaanin ba iyago sida isu doonayeen bay iswaayeen ba. Sida isku doonay jacayl. Sida isu doonayeen bay iswaayeen ba. So taas ku dhintay. Ma ay kuma dhimanaya maanta ay dhulkaas u saqabto iskaga tagay markuu waayay. Caradii markuu gabadha waayay buu iskaga tagay. Wada kalutay. Wadankee buu aaday? Wuxuu aaday Yamanta. Yemen. Iyadiina maxaa ku dhacay? Ayadiina way iska joogtay oo meelahaas iska wareegtay markii dambana daba. Wala iswaay. Isagana xanuunkiiba dilaba. So goorma la soo celiyay in lagu aasay meelahan oo kale? Isagoo xanuunsanayo alla keenay. And hold on, wili waaye. Allah, look at that, guys. Somali jacayl can be revived. So, do you think jacaylkii muu dhintay hadda de? Somali jacaylkii muu ka dhintay? Maalin walba waa la yimaasay uga dhintaa. Jacayl ma jiraa de magaalada? Waa jiraa muxuu jiraa ciyaalka yar baa ku jiraa. What about mama iyo adiga jacayl kugu jiraa wali? Maya ani waa soo gaboobay waa dhamaysay hawshay. Marka gaboobay jacayl waa loo baahan yahay wali. Way? waa ka dhargay. Waa ka dhargay. Meel walba waan tagay. Marka waa qof weyn baan noqday bes khalaas. Wali jacayl. Jacayl wali waa loo baahan yahay. أنا كوسينة Live from Berbera Integration TV, connecting with my Somalis all over this beautiful country. And I tell you guys, love can be found, revived, restored. Somali Cha'ail. So the way Mahain Ade. Aniga hodan bali rahdaya. Hodan wati ilmi boderi jidaya. Mahain ga inaysa. تقنعي معي هذا ما تيجي هي ثاني كده ما يدير يسا هذا ما يدير يسا هذا ما يدير يا هذا يو علمي حلقي وعلمي تاريخ دي سي يحلقوا بنتي يحلقي وقبيده وتريني عم بخطران سوا انا بخطران صار هي قررت فيها حاجه ويرتي سو عم بخطران سوا وصاركته والله هذا يو علمي بودربه انك عرفته هذا ما أعرف. هذا ما أعرفين. علمي أعرف. علمي ما أعرف. ما أعرف. كوري. أوكي. هذا هو كوسو قاعد. هذا هو كوسو قاعد. كوسو قاعد. يعني ما كنا قال صاحبنا هاي والله. والله. سمع هذا قبلها حاجة لو ما بحيبة. ما لنا عين مقع هذا. لا ما بحيبة. والله. والله. Guys, the name Holland is not popular in this city, okay? مقع هذا مقع قالقة ها Somali ده ما حدا. Okay, إيش القبيقة؟ أنا بخطران صار كي قررت فيها. إننا بهيدا. ويا بهين خطرين. قرية لابتين. قرية لابتين. نعم قرية لابتين. حتى يقول احترس. حتى يقول احترس وخلانا يسوع. ولقوا قبوبة. ولقوا قبوبة يعني بخطران صار كي قررت فيها. إننا بهين خطرين. قرية لابتين. واو. مش شهبة عبيسة يصير كوب شاه مكوعبة fresh شاه guys it's okay عبكرة إيه مكوعبة okay thanks this is why I love about Somali people guys we just share everything don't we والله شاه وخطرة ما ذاكريه هيا باكو دقي سنة يا أدر ما دا شيء كرسي أوكي أدر كالي حاجة وين سوق أدر والله صدق أدر صدق مع السلامة thank you follow me on Snapchat هذا TV okay Snapchat يسوق المور أقصد سلامة يا okay والله مع السلامة okay see guys how powerful social media is people are following me on Snapchat from Berbera how amazing is that and I'm drinking شاه أدرى صفر oh أدرى وين نعي مقعي هذا وايه ولا نعي مقعدن but guys I still love Somali love look at this قفكو حاجة كده قف شاكو سيا مالك الدونكا عاد أمها سنتها Integration TV Berbera